بقى mahad oo dhan iska leh وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها waxaa kaloo mahadnaqayaa runtii hay'adan Axiom oo inaga caawinaysa tababarkan TOT-ga afka qalaad loo yaqaano ama macallimiintii iyo farsamo yaqaaniintii kulliyadda insha Allah aynu furi doono 27ka March ee ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelan doonaan oo dhamaystirkeedii wax yar inooga hadhan yahay oo aynu xilliga la wareegi doonaa aan soo sheegay oo aynu ugu talagalnay mustaqbalka inay ka soo baxaan saraakiil da'yar oo muddo dheer maaragtay ciidanka kuwii maaragtay hogaamin lahaaya oo difcada kala kaankaan oo fara badan oo iyaga dhalinyaradaas iyo maaragtay koorasyo gaagaaban oo iyaguna ragga waaweyn iyagana dib wax loogu maaragtay wax loogu baro taasoo ka qayb qaadan doonta reformka aynu ciidanka booliska islaamka ku sameeyo marka macallimiinta aynu doonayno maaragtay inay xilliga dheer bilarka ragga soo saaran noqdaan ayaa saaka muddo kooban oo yar maaragtay ayay nimankan maaragtay Axiom waxay ina bari doonaan wax la way of teaching ragganu waa rag aqoon-yahana halkan fadhiya ee macallimiinta noqon doona waa rag jaamacado iyo maaragtay akademiyo kala nooc ah oo hay iyo maaragtay kulliyada sare iyo kulliyada dhexeba la soo ka soo baxay waa rag ka adkaan doona insha Allah maaragtay inay soo saaraan ama ay dhigaan manhajka kulliyadu leedahay marka qoladan waxay inaga caawin doontaa maaragtay qaabka wax loo dhigo ayay maaragtay seminar gaaban muddo 20 maalmood si aan ku heshiinay ay halkan insha Allah ay dhigi doonaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa kale Axiom waxaan leeyahay naguma filla intanoo quri we are not enough this short course we will need more about TOT marka waxaan uga baahanahay wax badan oo kale aynu uga baahanahay laakiin waxaan idin sheegayaa taas waa tawatooda waxaan si idin sheegayaa bin aadmigu horta waa wuxuu qabsado ma jirto qof give and take baa la yiraahdaa caalamku bin aadmigu waxba isu weydaarsada macallimiintiina halkan fadhida kelmadan oranaya waxa weeyaan idinkoo isugu jira raggii hore ee booliskii hore ahaan jiray iyo ragga imika dambe kulliyadaha ka soo baxay dawladaha jaarkayna la ah oo aan isleeyahay ciidanka booliskana wax weyn bay ka bedeli doonaan insha Allah ma jirto cid oon qof wax iska cid wax isiisaa ma jirto cid wax isiisaa qofka bin aadmigu wuxuu wax yahay markuu isagu wax qabsado ayuu qofka bin aadmigu wax noqdaa halkaad adigu waxaad qabsato ayuunbu bin aadmiguna wax kugu daraa waa inaynu ku talagalno inagu inaynu wax qabsano waa inaynu ku talagalno ciidankeena inaynu kicino waa inaynu ku talagalno reform weyn baa soo socda ciidanka inaynu ka qayb qaadano waa inay arrinta koobaad inaynu aaminsanay tahay inaynu inagu isku filaashiya gaadhno markaynu inagu taa la nimaadno bin aadmigu iyagoo yaacayagaa ku imanaya waxaan idinku dardaarayaa arrintaynu maanta halkan fadhina arrin fudud maaha waxaan filayaa ragga saraakiisha ee macallimiinta noqon doona iyo raggan board of training ee iyaga laftoodu fadhiya iyo dadka technicalka ee fadhiya rag iyo dumar waxay doonaan ha ahaadaan oo iyaguna maaragtay technicalka hoose noqon doona waxaynu halkan nimankanu wada yar un bay noo tilmaamayaan aqoonta inaga naqaano oo sidana laakiin ujeedadeena weyn waxa weeyaan waa inaynu ku talagalnaa ciidankeena waqti buu soo jiray booliska Soomaaliland kulliyadii hore soo yeelanaya ragga macallimiinta ka noqonayana waa idinka waa inaynu ku talagalnaa inagu ragga wax qabsanaya ee ciidanka kicinaya ee dhalinyarada soo saaraya ee madaalayaasha hadhowta mustaqbalka dhisaya soo saaraya inaynu noqono waa inaynu ku talagalnaa inagu inaynu wax qabsano
oo inaan cid kale hareeraheeda eeg gooraskuna wuu inoo furan yahay insha allahu